yaa weeye qabaa'ilka Soomaalida ah oo xustay ama lagu xusay gabayga jaahiliga ah, gabayada Carabta jaahiliga ah in Arabian Peninsula jasiirada Carabta ah Soomaali baa ku xusan yihiin marka dadkaas qabiilkee bayna gelayaan haddaa la xusay Soomaali. طبعا أنا كسومالي دان هاي أنا يعني من زمان وأنا ريقانا حضارة بدن بان حستي أما نصور شيكتي أما نجرنيسي لكن سؤالها طبعا اللي سودي وحكم ده أنا جماعة الصومالي بين اللي هذا كهر أنا جماعة الصومالي بين الأوريجين يعني مثلا كم سنة كهر الله بكون سنة كهر شن كم سنة كهر even إلى صدق كم سنة كهر ده مثلا صومالي اللي جرني أما طبعا كم سنة كهر whatever أما حضارة هي السين من لو يقعني مجا إنه يس واحد شرت dad adduunka jooga loo yaqaano Soomaali taasar maanta ina ogaano طبعا dad badan baa waxay u maleeyaan calaaqada East Africa ee Carabta inay bilaabantay waagi Islaamka taasna information sax ma aha East Africa ama Soomaalida calaaqado waxay la lahaayeen jasiirada Carabta ama Carabta before Islam hatta way jirtay calaaqado ka dhaxeeyay دوكيومنتيغا marka ugu saxsan oo maanta la hayo oo been sheegeen oo ah asdaq sijil موجود اليوم waxa weeye gabayada jaahiliga ah gabayada before Islam say Soomaalidu u sheegtay maxay ka sheegtay taas weeye mid buruufka ah oo maanta la oran karo yes calaaqada jirtay Soomaalida jasiirada Carabta calaaqadaas marka maxay ahaayeen maxay tahay waxa naga dhaxeeyay maanta waxa u laabanaynaa 2,000 sano ka hor maxaan anagu naga qoray gabayadana sideena loo xusay waxaan ku bilaabaynaa midka loo yaqaano ugu caansanaa gabayada jaahiliga Imrul Qays ningeesiyo ahaa aabihiis boqor buu ahaa gabayo waxa jirtay qasaa'id waxa laga wadaa sectionka gabayga qasaa'id badan baa waxa jira Soomaalida ama wax Soomaaliya khuseeya inuu ku soo bandhigay maxaa kamid ah wuxuu yiri طبعا aan tarjumaya على لا حب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجر على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة كانوا كل واحد يراها قصيدة وصفية وصف حلقة وضع وحبو soo bandhigaya waxbuu falanqeynaya wixii buu sharxaya asagoo wuxuu sharxaya inuu asaga طبعا qasiidada dad buu u laabano aabihiis boqor weeye asagana saxaradu wareegi jiray geesi buu ahaa gabayna uu ahaa yani codkar buu ahaa aabihiis marka boqorka waa laga dilay qolo qabiil kale la degtay dishay arsigu marka u baxaya طبعا asagu wuxuu matalayaa wuxuu leeyahay gabay dheer weeye qasiidadan labada section uu ku soo xusay anaga ama Soomaalida ama Soomaaliya wuxuu ku leeyahay مثلا anuu keligay ah oo mugdiya oo dhoofaya طبعا arsigu dhoofaya وطريق بلا أمانة طريق خطرة وضع دكحانة علامة ضمله طبعا واقس فرس بالكوري جري بس أعطوا كرجاري إيو ترين إيو طيارة دي متشرين سووا كلية هي طريقة خطرتها أنا ومريا بس واحد لو قبت بادي كرا بريد السرى من خير بربرة فرس كبربرة أنا هيستا فرس كبربري كأهلو يقال وفرس صومالي واهوري صومالي فرسية دا ويدري جرتي سعرته ويدري جرتي ayaga marka calishan anaga magac ahaan saan sheegay anagu meel la oran jiray Soomaali waxa la oran jiray magacyo badan lagu yaqaan waxa kamid ahaa al-barbars ama barbar sharq anaga la oran jiray al-barbari yani ani hadaan joogi lahaa مثلا كل يشب قصر كور لaba قصر كور حنان الصومالي لما oran lahayn waxa la oran lahaa حنان البربري خلاص from barbars okay which means you are Somali as يعني meeshana barbar loo yaqaan si wuxuu ku leeyahay waxaan ku nabad galay faras special aan wataa oo ah faraskii barbara طبعا dad badan baa waxay leeyihiin ma barbarana laga wada hadda ka dambe jirtay magac kalena way lahayd barbarana way jirtay laakiin Soomaalida oo dhan East Africa oo dhan dadka degan oo maanta Soomaalida loo yaqaan xeebaha oo dhan waxa la oran jiray al-barbars okay jasiirada Carabtana طبعا way degi jireen ama waan degi jirnay marka farasyada Carabtu aad ugu faani jirtay faras wuxuu ahaa very strong ah very fast degdeg u socda faraskaas xataa waxa loo yaqaanay min faras al-barbar waxa loo yaqaanay even waa faraska specialka oo ah بريد الملوك العرب في الجاهلية طبعا waa horsan ii sheegay postay waxa isma jirin fa warqadaha ama message-yada marka loo kala gudbin jiray faras bala raaci jiray عشان message-ka degdeg inuu u socdo faraska daalin oo continue dariiqa dhameynaya wuxuu ahaa faraska barbar
marka boqortooyada bas baad gadan jirtay faraska yani dadku dhan carabta xataa faraska isma qaadan jirin just anagu waxa naga gadan jiray boqortooyada iyo dadka laan dheerayaasha sida Soomaalidu baad u yaqaanaan faraskaas marka waa la qaadayaa boostada khaaska ah ama masajyada khaaska ah la rabo ama qoraal ha noqoto ama habal loo gudbinayo dad kale meel kala degan far away faraskaas marka raaci jiray faras very special weeye qof kale ma haysto soo iyagu ku faani jireen anigu waxaan haystaa faras khayli barbara bay ku leeyihiin taas wuxuu ahaa wasf rihla okay hatta waxa galeynaa number 2 shaahid ah even waxa gabaygiisa ama qasaa'idka nagu xusay again imru al-qays mar kale shaacirka jaahiliga aftahamka ahaa oo aad ugu caansanaa oo ilaa hadda xataa gabaygiisa la barto la akhristo muxuu sidee mar kale u xusay about Soomaalida leeyahay وبعد أبي في حصن كند سيدا يسود جموعا من جيوش وبربرة هل كان وحن قلني فانتان سياسية وقبيلية الساعة عرفت السنة وكرت قبيل بيوكلا بحان ويجد مرة قبيل كانوا كفانو أما باور كلية أصدق مركم حو كفانو هل كان كلمة حصن أبي بعد حصن أبي جيوش وبربرة محو كوضا طبعا سايني شيء إيذن أبيز والد لي قبيان حتى ساسو كوضا بعد أبي حصنة يعني وحو كوضا أبيهيس حتى هدول انطي أو بقر كأه استيل قلعد دينا يقصر جيني ميلا حكم كان ويجرتا وين تشريسا وين تشوكتا دليل كوحاوه يسود جموعا من جيوش وبربرة يعني استيل وحي هايستان وحو فانا يعني أود ملتري وحي هايستان أما هجاميان جمع وكمد ملتري يا بربرة which means barbars طبعا halkan gabayada markaan fiirino very sensitive weeye waa si gaar ah in loo arko awal shay barbar Soomaali weeye number 2 militariga jasiiradda Carabta Najd ama dhinacyadan Yemen way ku jireen lan boqortooyo weyn bay aheedo weyn bay xukumaysay maxaa keenay marka in magaca Soomaalida lagu daro si gaar ah asagiyo militariga xusayo ما فهمتين يعني قبل يقول أود إنه يراهدو يسود جموعا من جيوش مثلا وعربة خلاص يعني ملتري عربان هايستا مثلا ملتري بس ويري ملتري وبقوية بربرة ويري ملتري نوعي شوغان أو حق بدن بربرز نوعي نو شوغان أوكي waxa laga wado waxa weeye number 1 carabta horta waxay noo arkaysay ama barbar kama Soomaalida waxay arkaysay xoog kaligood taagan oo madax bannaan taasa keentay gabaygeena lagu xuso inay yihiin military ka go'san militariga laftarkiisa okay yani waa dad jira oo jooga oo la yaqaan even gabayga hadaa la ka qasiidana especially waxyaalaha ka garanaysid waxa kamid ah dhulka xataa anagu aan joognay waagaas oo barbar ardal barbar loo yaqaanay anaguna barbar loo yaqaanay shisheeye muu arkin you understand what I'm talking about yani muu arkin wala dhul fog ama meel la garanay may dhulkan kaanu inay ahaayeen مثلا dad iskaranaya lana militariga halkan uu jooga barbarna uu jooga yani Soomaali amal uu jooga you understand me saasa laga wadaa ama laga fahmaya kaanu inay ahayd ama tahayba shabakad xulufa ah iyo powerful isgaranaya iskaashaday taas marka waxay ku cadeynaysaa in Soomaalida weligood jasiiradda Carabta ay dagaalo ka dhacdo dagaalo مثلا sokeeyo ah ama dagaalo waaweyn way ku jireen almost hadda gabayadan waxa ka soo wargtay iyo taqriiban 200 sanad iska dhig before Islam bay ahayd fa hadda dhinac u fiirisid may yani Soomaalida way joogeen wayna u hiilin jireen ayagoo magacoodii wata ayagana waa lagu qadarin jiray meeshana way joogeen gabaygaas horta iyo qasiidada labada yani bayt saas laga fahmaya hatta علشان عرب kala aabihiis dilay banu asd baa dilay banu asd حتى يكون حلفضة لا وقعك تجليني أما كون هندية still we alive حتى أبيه ديشين حتى هدو انتي بقولكي أعتقد حجر بالأورنجري هدو حتى أبيه انتي بقولي حتى ده أبيه اللي دلي بقولكا still أنا جوا شوقنا من اللي تريجين أنا ما هكري يكون مع البربر بين رجوع الزيارية يعني ولا سكبتشنية أنا قدرت كلمة بتشرية أوكي شاهد كلامات أما قبل صدحات وحاوية من اللي يراهدو عدي بن زيد sida halkan aan u helnay Uday bin Zayd marka gabay waxa jira ama section even Soomaalida u soo qaaday ama barbar sida hadda u ogaateen yiri
يوم يقولون يا آل بربرة واكسومة لا يفلحن هاربها. طبعا شاعرك أما قبياء عدي بن زيد جاهلنا هو أها إسلام كروك سوقاري سووي جرتا قبيو أحداث كالعضي عربية بنسلة جزء عربته وحتى أساقا مركا واقي إسلام كو شاقي وسود تري ويري ساني إسلام ويقع عضي مثلا أخبار أهان يعني واحد عاد هذا الكمركا قبي كان محون قنية معني هيسا فعربي نقول شيء هلو نفس ما نقول ترجمية المعنى الكامل بطريقة بسيطة في يوم القتال ينادى أين بربر وأين أكسوم لأنهم قوة يعتمد عليها ومن يفر من واجهتهم لا ينجو يعني الدجالك مركب فيس تو فيس لو استكسني هاي وخلاص يعني لبضة صف لسجلية ولسدليو مركب اللي يراهدو ور بربرو إلى مي أكسوم ويستعدد كان ما أنت أم حارت لو يقان أكسوم مركب بربر كله المرسية قلت صومالي ضاع أكسوم لنا برتوبة على قلي قوي قال لبضة الشطر أنا كان كوبات كان لبعض وإيجا لبضة حوق وأنا يعني أن ويرنا إنه يعني أن كاشرنه مركا إراهنا آوي أهل بربري اللي عربتي بالدجال عرب الجليسة فصفك وحى هل كان تاجن بربرز ما أنتوا حوي صومالي ذا صفك كلنا وحى تشوجا أكسوم أما أمحارته بقرتوي ذولا وآت powerful هيدا حتى تصير عربته have to have طبعا جوفي ستي وقت من الأوقات فمركا لأورنا يو آوي أهل بربري المكسوم وقال دجالك وحيري لا يفلح النهاربها يعني حتى ضدك مركي لو إسكاشدان ودجالك كلان qofkii ka carara xataa tay ku cararo soo qabanayaan waa khalaas yani aakhira lagu diraya taas marka daliil weyn waxay u tahay hadda qasiidadaas inuu Soomaalida kaligood inay ahaayeen hawiye mustaqilla waxa laga wadaa yani dad jiray oo joogay oo kaligood ahaa yani Soomaalida lama oran jirin waa carab lama oran waa carab lamana oran waa xabashi aksum bana la oran lahaa ama amxaar baa la oran lahaa waxa loo yaqaanay barbar yani adiga waa jirto waa joogtay magac gaarana waa lahayd labadan dadna labada dhinac ka degan ama ha noqdo xabashiga carabta qofku ku khalday male they knows you understand me sasa laga wadaa gabaygana waa gabal siyaasi askari way waa sida hadda gabaygii ka horeeyay oo ahaa Umrul Qays laha aniga military wuxuu ahaa min jeyshin wa barbara markuu leeyahay the same way gabayaagan carabka jaahiliga ah baa wuxuu sheegayaa إنه ساحة معركة مركز لتشوفه حقوقاً ويارني إني نجرب استعجان وحي أهين أكسوم نوع إمبراطورية قال لو بقى تشرو هيبت لحيت إيو حروف ذينا أو history أهانا barbers لبضوا هذا مركز يجو قبائل كمركز زليان هذا ويرتان لبحوا كله حتى هذا يطهي مثلاً 8 عسكري كهولوا ما تقبيل كاس قصيدة الساسة اللي جوالها قصيدة مركا كوحكة وحوية قصيدة ومن ليهي ومنا بأرض الغرب تعلقوا إلى بربرة حتى أتوا أرض بربرة يعني بكل ليهي قار كان بضن بوحة شراء من غربي يعني غرب وحالة جوالها قلبيتك يعني قلبيتك أبحين أوكي بربرة أبحين إلى إيجار أوكي بربرة يعني وحوية ضد قلوب عربة وشاهرية دي تشوي ودhinacaan Soomaaliya xeebahan East Africa soo galay asaga ku ilaa dad xaq inaga tagay oo aaday oo kuno oo khalaas yani tagay mana soo laaban saasay u dhigmaysaa gabaygaas section kan qasiidada badankeed lama yaqaan qofka yiraahda laakiin buugta qaar waa lagu xusaa ama maqaaladaha qaar okay laakiin laba hubo exactly yaa yiri qasiidada hadda waxaan galaynaa number 5 ah oo ayadana shicir jaahiliya wuxuu halkaan sheegaya uu leeyahay ولميس كانت في ذوابة ناعط يجبى إليها الخرج ساكن بربرة من مركة وحا قصيدنا لون نسبية جاهلية جوير هذا علقة من الجد أسر كيس مركة هو يمن even شعر الأخبار بالي هذا يعني أيضا أفتر كذا ديوان قري لما هيو لكن وقبل لا يراهدو يسوي جرتي لكن بقول لما هو أصلا مركة وحب لي هي إنه واحد جرتي ميل حصنا أما قلعة ويمن كل احتال oo magaalada xataa magaceeda halkaan ku qoran tahay naacid la yiraahdo waxa uu leeyahay waa buur Yemen ku taal qadiima laakiin Yemen qadiima asal markuu ku xusayaa wuxuu leeyahay inuu wax uu shalaynaya markuu wuxuu ku leeyahay alla waagigu ku leeyahay qalcad hebel markay lacag badan taalay oo lacagtaas laga soo qaadi jiray dhinacaan barbar ama Soomaaliya maxaa marka laga fahmaya gabaygaas taas marka hadaa la akhriyo maybe dadkeen yiraahdaan oo مثلا
يمن بالعك سومالي كقاعد جرتي أما حوق جرتي أما ويحكومي جرتي طبعا خرافاتك وحوي هيستوري كجرا يمن ولقيت صباري بحكومي باور كاستر بلا هاي لكن ما حق قبل يعني لقى فهمياه لأنه أصلا وحكاد لي واحد باستي الماضي نقول لي وابا جرتي لعق إني هالكالو أرورين لعقت هالكان كو أروسين جرني قال عدان يعني واجا سنة ولا قبحي يعني أول شيء وضيقان أما إن كان جدا وحو كفانا يا ميشان حصني أما ناعت اللو يقان إنا lacagta lagu aruurin jiray oo lacag badan taale horta taas bay ka fahmaynaa qasiidadiisa tan marka saddex siyaabay u dhigmi kartaa horta number 1 ma lacag oo yani la isku ogaayo meesha la dhigan jiray hadday مثلا anaga dagaala waligeyn geli jirnay waligeyn ama dad baa diri jirnay anagana la diri jiray saas ay history ahaan waxa laga yaabaa xurufo inaan lahayn caalam alqadiim oo dadkaas ka mid yihiin oo lacagaha halkaas ama lacagaha extra halkaas la dhigto مثلا waxaa dhici karta businessya naga dhaxeeyay inay canshuurada la kala qaato ay business adduunka canshuur waa bixinaysa caalam alqadiimna canshuur way jirtay anaguna canshuur baa dad qaadi jireen anagana waxa jira businessan oo keeno yes intaas waa la bixiyaa taas way oran kartaa businesska waagaas ayaga boqortooyada inay lacag extra haystay darajada oo lacagna halka way nooga imaan jirtay okay midda number 3 maxay noqonaysaa heshiisyo ka dhaxeeya businesska iyo boqortooyada oo marmar dariiqyada badda lagu ilaalinayo aniga history ahaan marmar ba waxa jirta aan u baahanay ina u yeerano dad xulufo ah siday badda noo ilaaliyaan businessyadan marka haday burcabadeed badan soo baxaan la yiraahdo yes you can save muxuu ah rootkan businesska lacag baa leedahay taasna xataa way dhigmaysaa leesh laanu aqliyan ma noqonayso in dadka jasiiradda carabta joogay oo anaka u kala yeelin jirnay mesela ama gabayga ku xusaan military nahay oo waxa soo dhan qoran yihiin in la yiraahdo maya ayagana dad waxa jiray oo مثلا in the end xukumi jiray مثلا ama power kule ama xoog u sheegtay يعني Soomaalida until today qof xoog u sheegtay mala ay qof meeshan isku taxallujiya aakhira loo diraa information kaas yani ABCD ga la ogyahay way history military warka la yiraahdo yani barbarska ama Soomaalida sida gabayada hadda u jeedid shaacirka jaahiliga waxa ahaayeen power xoog leh la garanayo oo yani mala la kaftami karo ama laguma soo qaadayo wala inay yihiin dad waxbana gelin ama dad wala la iska keensaday ama xataa waxa loo yaqaan murtaziq waxa weeye inuu qofka lacag baxsho kaliya kaala askari iyo noqo waxaas history ahaan xataa yani way adag tahay inay gasho waxaan oran karnaa in businessyadu isku xirneed koonfurta carabta iyo East Africa especially Somalia business baa la isku lahaa waa la kala gaashan jiray waa ka because in the end wuxuu leeyahay wixii way ka burburtay asagoo hadduu power leeyahay wixiisa ma ka burburi lahayn you understand me in the end yani kan waa gabayga ugu dambeeya oo kan lixaad ah ama number 6 oo magaciisa waxaa la yiraahdaa Mirdaas bin Abi Aamir as-Salmi gabayaa jaahili ahaa islaamkan uu ka soo gaaray muxuu leeyahay qasiidadan tadaacat banu bakr alayya kaannama تداعت علي بالأحرة بربرون يعني قصيدة وحيالة بدن بالغ فهمية وهرت قصيدة فنية في نفس الوقت وحاوي قصيدة أو شاهد إني بربر كان Soomaalida ده هايين ضد لقى بقول لقى هيبيستو بني بكر مركب وقبيل أسجى سكول دعين أسجى مركب ليه قبيجة ورا بني بكر بيجوسوا دولو إلى الدجالو سكادسة وحن مودي دجالذي barbarka soo qaadi jireen oo kale yani very strong yani waxay ila dagaaleen kaanu inay khalaas rabaan inay dilaan oo kale way isku dhaceen marka wuxuu yiri tashbiih buu ku sameeyay oo barbar dhigay wuxuu dagaalka xoogiisa dhibtiisa iyo kuleelkiisa ay ugu qaadeen oo si kadisa ama la filaan ahayn waxay sida kadiska dagaalka ee Soomaalida u qaadaan iyo barbarska iyo adigoo dhan khalaas yani kala tuuro taasna waxay tusaysaa yani macnihiisu waxay noqonaysaa sharaasatul barbar inay beri ahaayeen dad powerful oo tough markay dagaalka galaan خلاص no naxariis no face no case saas yani fisher section kulliye tadaacat عليه بالأحرة يعني كأنه ضب كل يعني كبد أوليس الله يقصد طرق يعني wuxuu ka dhigay dadkan oo soo ataagay طبعا ataag ma noqonayo dil yani noqon kara hadal xun lagu yiri ama si xun oo dhaqmeen ama dadana ka diidanay wax ka gataan ama yaseen inuu asaga yiri كأنه كبد in lagu tuuro yani kulayla sida qoladii barbarskii oo kala adigu noqoteen say camalin ma adeeriya saas oo kale loo dhisa warka saaxiibayaal intaas ay ahayd gabayada ugu caansan waxa hadda aan ka hadlaynay 6 abyaad qasaa'ida oo Soomaalida lagu xusay jaahiliyada min 2000 ilaa 2500 sano ka hor
iyo 5 nin gabya ah oo dabcan midkood gabyada aan hayn magaciisa laakiin 4 aan haynin magacyadooda caana oo conform la hubo marka waa ina salaamay insha Allah xalaqad soo socota mowduuc cusub iyo xalaqad cusub khayr baa isku ognahay